waxay maalin sabti ah muqdishaan joognay subaxii hore jawi caadi aan isaga jirnay waan xasuustaa aniga asxaab kale oo reer muqdisho waxaan aadnay bangiga Premier Bank Maka al-Mukarrama ku yaala suuqa bakaarahan aadnay duhurradii xilli ay tahay yaa waxaa jirtay ciyaar Manchester iyo Liverpool dhexmareysay marka qorshaha wuxuu ahaa in dhismaha idaacad sporti ah oo ciyaaraha FM la yiraahdo Digfaar agtiisa ku taala inaan ku daawano inta badan dhalinyarada ciyaaraha inay isla daawadaan iyo jecelihiisa si xamaasadaas iyo waxa kubadda loogu xifaaltamo marka xilli duhur ahaan nimid dhismihii idaacadda ciyaaraha FM oo isbitaal Digfaar agtiisa ku taalay qaybta hore ciyaartaan daawanay qaybtii dambe marka waxaan go'aansanay inaan hotelkan ay ku soo noqono saxafi oo lambar 4 ku yaalo marka bajaaj baan wadanay bajaaj markaas anaga noo gooni ahay inta badanna bajaajka waxaa loogu doorbidaa iriiriga ma gasho meelo badan bay ka dusinaysaa waa soo baxnay waan xasuustaa barigaas ciidamadii dib u xasilinta muqdisho la oran jiraa aad u kacsanayo jidgooyooyin fara badan iyo dadka ku baari jireen marka intaan ku soo dhicin wadadan weyn ee highway-ga ee afgooy ka timaadee lambar 4 ku dhacda Sebiana iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo horumarta jidgooyooyinkaas aan ku soo beeganay cabaar baa marka nala baarayo nala hakiyay marka waxaan ku soo dhacnay wadadii weyneed markaan la simanahay dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda darbigeeda waan xasuustaa wasaaradda arrimaha dibadda darbigeeda marshabiyeediga waxaa saaran dhagxaantan faraha badan ee qaraxyada iyo difaacyada loogu talagalay luqarxu dhacay qiyaastii marka isgoyska Zobe 1000 talaabo ilaa 1500 talaabo hadaan badiyo yuu jira kaliya waxaan xasuustaa bajaajta waxa waday yar saaxiibkeen Cabdullaahi Shariif la yiraahdo anna waxa ila saarnaa gadaal Cabdiraxmaan Al Xasan Jeeri telefoonkan ku mashquulsanaa ma xasuustina inaan Facebook ku jiray ama wax kale aan ku mashquulsanaa qaraxan marka maqalnay qarax runtii waan daami aan ku dhaweyn aad u muusan xooganin inta badan qaraxyada dadka ka fog yaa dhawaaqiisa aad u maqla bajaaj baa naga horeysay waan xasuustaa bajaajtaas nin macaws gashanaa baa waday islaanna gadaal bay saarneed qofka ugu horeeyay runtii meedkiisa aan arkana wuxuu ahaa bajaajtaas labada qof ku dhintay marka qarax markuu dhacay oora dhacday jugti markaan maqalnay inaan mootada ka dago bajaajti waan damcay marka saaxiibkay Jeeri yaa wuxuu ugu yiri markay qaraxyada dhacaan lama ordo firarka dadka dila marka bajaajtian xoogaa isku yara nabnay daqiiqad 2 daqiiqo saan jeclahay yaan ku jirnay mardan buu yiri aan degno marka anagoo foorarsan oo ordayna yaan degnay marka firarka aad u socda qashir fara badan firar waa dhacaya darbiga wasaaradda arrimaha dibadda dhagxaantii tiilay yaan ku gabanay marka waan fariisan marka qiiqba iyo olol iyo uure iyo waxba isqabsaday firarkii wali wuu socdaa markaasaan sawirkii ugu horeeyay anoo gabanaya yaan dhagaxa korkiisa intaan mobilka ku toosiyay yaan qaaday وانا صورك ugu horeeyo aan qiyaasayo in qaraxas laga sameeyay uuro un bay ahayd iyo qiiq waana post gareey qarax baa dhacay marka runtii cabsi badan marka ima haynin waana markii runtii iigu horeysay on waxyaabo noocaas ah indhahayga ku arko inaan maqlo moogiye kadib marka waan soo baxnay ambulance baa timid waxyaabo aan xasuusto markaan iigu horeysay waxa kamid ah qoliyahan gargaarka degdega markay dadka gurayaan meedka way ka tagaan marka waxa dhigtiida ku soo dhacday warka kan uu dhintay naga kaxeeya dhaawac uu bay gurayeen marka waan la yaabana laakiin gadaal dambe waxaan ka ogaaday in meedka ana waqti la siinto qof dhintay waa meed waxba looma qaban karo meed ahaan in loo asturoon moogiye marka waa xirfad qofka dadku kor imanayaan kan dhaawac uu bay qaadan qofka dhaawaca si markaas wax loogu qabto 2 sano laga jooga sabti bay ahayd waxa kamid ah dadka reer Muqdisho sida ula qabatimeen dhacdooyinka noocan ah runtii dhacdan noocaas horto ka weyn taariikhda ummadda Soomaaliyeed ma soo marin ma ahan Muqdisho oo kaliya laakiin jinsiga Soomaaliga ah meeshuu joogo masiibadaas masiibo ka weyn ma dhicin qabatinka dadka in nolosha caadi u noqotay inuu qofka maanta 100 meed arki karo konton dhaawac arki karo hadana noloshiisii ay caadi si markii loo eego waa adkaysi runtii haddana de qofkii inuu jawi noocaas ah ku barbaaro maalin walba uu soo joogo runtii adiga laftirkaaga ani Muqdisho safar ku tago iyo kuma nooli marka wax kale runtii ku tusaysaa waxyaabaha runtii taariikhda galay
aniga cabdirasaaq ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo kamid ahayd xanuunkii isaga ahaa saameyntii ka dhalatay agoontii ay abayaashooda ku dhamaadeen hooyooyinkii carruurta badan ka tagay qasaarihii naf marka laga soo tago maal ah iyo magaca Zobe qaraxeedii marka la yiraahdo magaca magaalada Muqdisho runtii marka intii ku dhimatayna Allahu naxariisto intii ku dhaawacantayna Ilaahay u booga dhayo magaaladaasna Ilaahay xafido wax kale oo oranaya malahan Allah dhowro Allah xafido